waxaana wanaagsan dhammaan meeshaad naga daawanayso halkan waa hargeysa online aadaba ka daawataan hargeysa online.net maanta waxaan ka hadlaynaa siyaasadihii doodihii siyaasadda aan kusoo qaadan jirnay kolba xaaladda Somaliland ay marayso waxaa dhawaanahan lagu jiraa doorashadii oo la qabanqaabinaya golaha wakiilada ama baarlamaanka Somaliland maanta waxaan marti noo ah garyaqaan Cabdilaahi Xasan Nuur oo ku sugan wadanka Ingiriiska oon ka wareysanayno bal maxay ahayd tolay golaha baarlamaanka Somaliland Cabdilaahi ku soo dhawow hargeysa online bal waxaad nooga warantaa taariikh intee leeg ayuu soo lahaa baarlamaanka ama golaha wakiilada ee Somaliland bismillaahir rahmaanir rahiim kama loo salaaman tahay waxaan taariikhda baarlamaanka Somaliland marka laga hadlayo kulli waxa weeyaan waxaynu inagu ognahay in dawladda casriga ay waqtigan ay ku noolaa waxay nooga timi inta badan wadamada reer galbeedka inagu hore waxa weeyaan systemka dawladda baarlamaanka ku salaysan deemaan lahayn waxaana uu la socday gumeystihii Ingiriisku markii uu yimi Somaliland maxay tahay muddo dheer haystay wuxuu bilaabay inuu markii dambe uu sameeyo golaha la tashi ayuu sameeyo odayaal ku jireen laakiin baarlamaan marka la yiraahdo la doorto oo xisbiyo ku soo baxaan waxa dhinaca Somaliland waxa ugu horeysay hay'adda doorashada ka hor bishii February 17 maxaa jiray xorriyadda ka hor bishii February 17 ayaa doorasho ka dhacday Somaliland doorashadaana waxa ku tartamay saddex xisbi oo markaa ahaa xisbiyadii gobonimodoonka oo maxay oo kala ahaa SNL iyo USD iyo NUF Somali National League iyo maxay United Somali Party bay kala ahaayeen iyo NUF maxay tahay Nation United Front saddexdaa maxay tahay xisbi baa kooyin ayaa ku tartamayay dawladda Ingiriiska markaa maamuleysay waxay ku tartamayeen 330 kursi oo baarlamaan ay ku tartamayeen election kaana waxay saddexdii xisbi baa kuraasidii kala qaato SNL oo markaa ugu weynay 20 kursi bay qaadatay USB na waxa weeyaan 12 kursi NUF na waxay qaadatay hal kursi saddexdaa iyo 330 kursi saafay u kala qaateen markaa baarlamaankaas ugu horeeyay Somaliland waana baarlamaankii la midoobay goboladii koonfureed 1900 iyo maxay ahayd 60kii midnimadii dhacday markaa khibrad waxa ay lahaayeen iyagoo 5 bilood yani February waxa weeyaan ayaa maxay ahayd ayaa la doortay 16 June waxa weeyaan xorriyadii baynu qaadanay dadna midoogii baba dhacayba oo labadii maxay ahayd gobol koonfur iyo waqooyi waqtiga la kala wareegay Somaliland protectorate iyo maxay ahayd Soomaaliya la kala wareegay jiray ayaa saa ku midoobay labadii maxay ahayd dawladooda waqtiga xorriyada kala qaatay ayaa saa ku midoobay halkaas markaa baarlamaankii wuxuu la falgalay baarlamaankii maxay ahayd koonfureed ayaa iyaguna maxay ahayd ayuu la falgalay 9 sano baarlamaankaas markaas kolba la dooranayay oo xubnaana xagga Somaliland dad laga dooranayay koonfurtana dad laga dooranayay dadna inqilaabkii markuu yimi 1969kii waxa go'ay khibradii baarlamaannimo ee dadku ay lahaayeen oo xisbi kaliya wadankii qabsaday xisbigii hantiwada gacanka Soomaaliyeed buu ahaa ma jirin markaa waxa weeyaan baarlamaan macna leh ilaa burburkii laga soo gaarayay 91kii kadib deedna Somaliland waatii
dubbay markaa waxa weeyaan waa kuwii maxay ahayd la soo noqday midnimadii ka noqday shirkii burco lagu dhawaaqay 18 May waa 1990 markii lagu dhawaaqay waxa la sameeyay markaa baarlamaan waxa laga dhigay golihii dhexe SNM ayaa baarlamaan Cabdiraxmaan Tuur madaxweynaha loo doortay xasan ciise jaamac madaxweyne ku xigeen labaduba waxay isu ahaayeen SNM bay chairman iyo vice chairman bay kala ahaayeen labadooduba golihii dhexe SNM waxa laga dhigay baarlamaankii markaa qabaa'ilkii kale ee Somaliland ee markaa golaha dhexe ku jirina xubnaha laga soo daray markaa Ibrahim Migaag oo isaguna markaa golaha dhexe madax u ahaa madax u noqday muddadii markaa Cabdiraxmaan Tuur Cabdiraxmaan Axmed Cali Allah yarxamo waxa maxay tahay ku dhamaatay maxay isagoo baarlamaankaas jira kadib dabadeedna waxa loo gudbay shirkii Boorama yimi shirkii Boorama markaa ahadi qarameed baa lagu sameeyay waxa markaa la dhisay baarlamaan baa la dhisay halkaas markaa baarlamaankii labaadna uu ka soo maxay tahay uu ka soo baxay Somaliland oo isaguna muddo maxay tahay jiray baarlamaan markaa kaana qabaa'il baa lagu soo doortay kii hore golay dhexe SNM buu ayaa base u ahaa maxay tahay 91 ilaa 93 say koob iyo 93 ilaa 93 base waxa uu ahaa golihii dhexe SNM baa maxay tahay dee baa la kordhiyay kii waxa weeyaan Boorame lagala yimi ahadi qarameedkii iyo kadibna deedna xukuumaddii la dhisay iyo baarlamaankii kaana waxa base u ahaa nidaamkii qabaliga ahaa oo waxa weey qabaa'ilkii baa laga soo xulay iyo ahadi qarameed buu ku taagnaa labada kun markii dastuurkii dabeednoodkii dastuurka la sameeyay dastuurkii la ansixiyay dastuurkii xisbiyuu sheegay in xisbiya la sameeyo waxa ku qoraa in doorasho la galo dabeedna arrintaas waxa hirgashay waqtigii maxay ahayd madaxweyne daahir yaali isaguna uu joogay ayay hirgashay 2005 ba markaa la doortay baarlamaankii maxay ahayd dastuur ku salaysan dadkuna ay doorteen wuxuu ahaa 2005 buu ahaa baarlamaankaas markaa ugu horeeyay baarlamaan la oran karo waa weeyaan baarlamaan de xisbiya ku soo baxay shacabkana maxay ahayd sanduuq ay u dhigteen codkoodana ay ku soo saareen ayuu ahaa baarlamaankaas de muddo dheer markaa maxay ahayd ayuu fadhiyo waa kan imika waxa weeyaan fadhiya markaa oo muddo de 16 sanadooda ayuu maxay ahayd ku dhow yahay uu yahayba dhinaca kale waxa weeyaan de guurti baa jirtay oo marka baarlamaan la yiraahdo wuxuu magacaas wuxuu wada qaadanayaa guurtida iyo waxa weeyaan wakiilada marka kan imika la dooranayo ee ka sheekeynayo wakiilada la yiraahdo marka si maxay ahayd sharci ahaan loo eego waa wakiilo laakiin magaca guud waxa wada qaata baarlamaan marka leeyahay waxa wada qaadanaya golihii guurtida iyo golaha baarlamaanka ayaa waxa la isku yiraahdaa golaha ay wakiilada baarlamaan baa la isku yiraahdaa marka golaha wakiilada muddada dheer jiray ayaa runtii wax khibrada oo marka la yiraahdo waxa weeye khibrad baarlamaan 16 sano iyo intii ka horeysayba adigu 90 wixii ka dambeeyay ayuun baa la oran karaa waxa weeyaan Somaliland waxa weeyaan muddada ayay maxay ahayd baarlamaan shaqeynaya oo shuruuc sameynaya oo waxa weeyaan dooda ay ka dhacayaan ay maxay ahayd ay yeesheen waad garan kartaa markaa inta de khibrad loo leeyahay markaa noloshii baarlamaanka iyo siyaasadkiisii iyo waxay kaalinta waddanka ka qaadan lahaa waa khibradda aadka u kooban runtii taas baana ilaa imika maxay ahayd socota marka waxaan odhan karaa intaasay de xisbiyadii xataa waxaa arkaysaa baarlamaanka imika jooga saddexdii xisbiye waxa weeyaan 2005 ku tartamay waxa weeyaan udub way baabaaday oo waxa weeyaan udub oo 33 kursi ku lahayd waqtiga heshay 28 kurmiya helay 22 waxa helay xisbiga ucid marka tiradaas ay kala heleen way runtii si waxaad moodaysay miisaan si miisaaman in kuraasta loo kala qaatay oo waxa la kartaa election de aad la oran karo waxa ka muuqatay maxay ahayd mar haddii de xisbigii dalka xukumayayba
dhowr kursi uu maxay tay dheeraaday maxay labadii xisbe kale waxaad arkaysaa in si fair iyo waxa weeyaan iyo nolol iyo in meeshii xorriyadi jirtay xagga maxay tay electionka marka intaasaan ka oran karaa maxay tay taariikhda maxay tay baarlamaanka wakiilada Soomaaliland Cabdullaahi waan gartay waxaad ka dhawaajisay in muddo 16 sano ay meesha ay fadhiyeen laakiin sida sharciga u dhigi waa 5 sano filaya soo baha marka tira ayaa loo koreeyay tira badan bay ku joogeen yani sharci darro soo ma muddada dheer waxa weeyaan waxay ku joogeen waxa la oran karaa waxa iyo doodaas way taalaa waxa weeyaan inay sharci darro ku joogeen dad badan baa qaba waxaana la oran karaa waxa weeyaan مثلا كلمية واحد ويمكن محي تي لودي تيرمي ودنبي إن حكم كهيي حزب جيس وقتها وحي تي إن ومركل برلمان دي هراء لجاه اللي برلمان كله بدلي سجلتي سمودر بوجو كي هراء وحريت الشعب در بوجو إن أيوة لا يلا ورجل المعارضكم لكن هذا نادر حكومة مرة بوح لقيت ثمانية كردين باجرتين وواحد جرا إن قضى ورنا الدستور برلمان وحوي واحد بدليون إن برلمان إن فردية واحد بدلية برلمان كله جورت لفت بدون أود واحد أولى هذا إن الكردي سواح وقضى بعميش قرن لكن شروط بقى تستمر شروط أصلا يسوق بصلاة وحوي مركز مسلمين بحثنا وكله جيران ظروفها له واحد يعني كردينته لكن واحد مو يسمر والبا إن كردينته أي كي من يسي وحوي خلاف وحوي سياسية أو أي كإيمانيسي واحد كلا يجونا كود جريت ظروفه وحوي نقاله هي يدونا جرتين أو إلكشن كوحو بعنا محيتي سؤال بروح واحد مثلا يمكن ضاله إن آتك أو هبسامية يمكن كان كي هورنا هبسامية بريئة 2005 كامر كي لدورنا كي كوري لبعض كوني شنطة مركي لدورنا برلمان كي هوري فردي وقت جي عيالو كجتجي ظاهر يعني ويمي مركو ربين وبدلوا ضاد عدد باطني مركا أو إما كتن كان ليسكو هيستين متدع ضاد عاص مركا واحد كده لنا يسي واحد اللي يري برلمان كي محاية واحد وإن لا سميت ركوب كراسي وسديد يلا باطن واحد ويا لبيس ديت الكرسي لبيس ديت كا كرسي محاية برلمان كا ضد بدن بقى قبا إلي محاية كدوا الميهين واحد شروع كله وحويان قبلدي وحويان لا من واحد كراسي لنو قنتي صح معها وحويان تصالحان وحويان هرجيس لبعض كرسي لا ضحي ما حمت المرات شيخ قبل كمرات شيخ لبعض كرسي ليه قبل كأوضل صدق تبغى كرسي ليه قبل كتقدر لبيه تبغى كرسي ليه قبل كسناك وحويان لبيه تبغى كرسي صار لبيه تبغى كرسي إياه ساحل أو طبعا كرسي سديد يلا بعدين سديد لبيه سديد تكا كرسي مركا عيال كلاليه بيس كمركا فلسفة كده بيس مركا يعني وحويان إن لبيه سديد تكا كرسي استعلاق قيبيه وحلو محل تي بيس جريء كراسي دي لكلا يشي إن دور شديد علي تضبيط طبعا كي فبراير قصة قال بقولي ليه ده كي إنتان الحرية دقائقا إنجليز كقبتي صدق هي كرسي بيهاين صدق كا كرسي وحويان قبل كمرة شيء تضبيط طبعا كرسي وكهالي إن قبل كا إن تقدرنا شن يطوبوا كهالي إن وبين قبل كا وحويان إن أنت ما يا قبل كمرة شيء وكهالي إن تضبط كرسي بمشي قبل كمرة شيء وكهالي تضبط كرسي صدق يستو كرسي بهاي قبل كمرة شيء وكهالي تضبط كرسي قبل كتقدر روح وكهالي ليه كرسي إن صول يسناك أو يوم حياتي إن أوضع يو إن يو ساحل ومركا ها دقموين دمان تودبا مركا قبل الله ما قيمة ديستركتيف الله قيمة وحلو قيمة دقموين دقمة هرجيسة دقمة بربرة دقمة بورمي دقموين نوع عسى لو دقمة برعو دقمة عرقابة دقمة لاسعانات بلو قيمة مركا أفر دقمو وحي هلاش شن كرسي إن
hargeysa iyo maxay ahayd iyo burcana midna 7 heshay midna 6 kursi bay heshay 3 kursi baa 2.5 lagu dhuftay dabeedna waxay noqdeen 280 iyo bar bay noqdeen intay markii la isugu dhuftay barkii waa la tuuray dabeedna markii dambe la isu celceliyo saaxil waxa laga soo qaaday dabeedna saasa markaa kuraasida imika 280 kursi ay ku kala haystaan markaa maxay ahayd ay baarlamaanka ku kala haystaan goboladu oo awdalo 13 kursi iyo maxay ahayd Maroodijeex oo maxay 20 kursi togdheer oo 15 kursi iyo waxa weeye saaxil oo 10 iyo maxay ahayd Ceerigaabo iyo Sanaag iyo Laascaanood ama Sool oo iyaguna 12 kursi 280 kursi markaa sidaas ay ku kala qaateen markaa dooda markaa halkaas waxay ayaa la isku qabsaday waxa keenay markaa waxa la yiri tirakoob la sameeyay markaa daahir yaal waqtigiisii deedna baarlamaankii iyo guurtidii way dabreen markaa sharci bay sameeyeen ay leeyihiin doorasho ma dhacayso ilaa waxa weeyaan la sameeyo tirakoob kadib dabeedna go'aan adag bay markaa qaadatay xukuumaddii uduga waqtigaas maxkamaday geeyeen waxay jabiyeen go'aanadii iyo shuruucii maxaan jeedaa sharciga isku raaceen labada gole ee baarlamaanka ee waliba maxay tahay aqlabiyad xoog badan ku ansixiyeen oo aan madaxweynuhu waxba ka qaban karin markaas maxkamadda Soomaaliya u gudbiyay iyadaa jabisay markaa saasay ku galay markaa doorashadii 2005 dhacday markaa doodaas mar walba imanaysay saami qaybsiga markaa tanna imika waxa weeyaan doodii way jiitantay وظروفtaasna way jirtay iyadana maxay ahayd tirakoobka imika markaa tiina waa tan laga baxay leeyahay sidii hore baa lagu galay sidii daahir yaala uu ku qabtay ayuun baan imikana lagu qabanaya 280 kursi ayuun baa lagu qabanaya waxa la yiri marka tirakoob ila tirakoobku dhaqaale badan buu baahay marka ay dhaqaale helo ay loo helo waxa la sameeyo maxay ahayd tirakoobkii marka tirakoobka waxa lagu qaybiyo marka taasa keenaysa dib u dhac inta badan waxa uu leeyahay awood wuxuu leeyahay runtii golaha wakiiladu haddii awoodiisa uu adeegsanayo oo maxay tahay baawarka dastuurka horta guud ahaan waxa weeyaan qodobka 730 waxa weeyaan dastuurka Somaliland marka laga hadlayo wuxuu tilmaamayaa qodobkaas qaranku inuu ka kooban yahay waxa weeyaan maxay tahay 3 waaxood waa hay'adda maxay tahay fulinta iyo garsoorka iyo sharci dejinta oo wakiilada iyo guurtidii waxa aanu tilmaamayaa ummadda maxay tahay Somaliland in waxa weeyaan ay u hibaysay awoodeedii iyo karaamadeedii ay maxay tahay u igmatay hay'adaha qaranku sameeyay dawladda oo ka kooban hay'adda 3 hay'adood marka horta halka de waxa weeyaan ummaddiibu wuxuu ka mid yahay 3 hay'adood ee ummaddu awoodda siisay ayuu ka mid yahay ay u wakiilatay in awoodeeda uu maxay tahay uu adeegsado waxa kaloo iyaduna maxay tahay uu dastuurka siinaya oo uu jireeyay inay yihiin 3 waaxood oo kala maxay fulintii iyo garsoorkii iyo sharci dejintu inay kala madax bannaan yihiin oo ayo idana loo maxay tahay dastuurka u qiraya waxa iyagana maxay tahay dastuurka uu siinaya in waxa weeyaan baarlamaanku uu ansixiyo waxa weeyaan golaha wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada iyo hay'adaha madaxa bannaan oo dhan in uu maxay tahay uu isagu ansixinayo waxa uu awood u siinaya maxay tahay dastuurku in barnaamijka xukuumadda uu isagu ansixiyo oo waxa weeyaan wax ka bedeli karo u fiirsaarka ku celin karo ay tahay xukuumadda isagoo sababaynaya waliba marka uu celinayo uu ka doodaya waxbuu ka bedeli karaa wuu celin karaa celinta uu madaxweynaha ku celinayo xukuumaddii wuxuu u sababaynayaa waxa weeyay wuxuu barnaamijka ugu celiyay
marka waad garan kartaa awoodda uu u leeyahay inuu celin karo maxay ahayd waa in la hor keeno waxa kale uu awood u leeyahay waxa maxay ahayd baarlamaanada laga hadlayo la yiraahdo istijwaab bay carabtu tiraahdaa qofka waxa weeyaan inuu qof inta u yeedho inta wasiir u yeedho ay su'aalo weydiiyaan adag shaqadiisa ay ka weydiiyaan hay-adahoo dhan oo taa way maxay ahayd way ku samayn karaan wuxuu awood u leeyahay heshiisyada inuu maxay ahayd dawladdu gelayso inuu maxay ahayd ansixiyo oo uu ka eego awoodda maxay ahayd ballaaran buu leeyahay xaalad degdeg ah waddanka kuma soo rogi karo haddii aan labada baarlamaan aanay fadhiisan dabeedna xukuumadda ku raacin markay soo jeediso oo waxaan jeedaa labada maxay ahayd gole aanay fadhiisan oo xukuumadda aanay ku raacin maxay ahayd xaalad degdeg waddanka lama gelin karo shuruucdii waxa awood u leeyahay miisaaniyadda isagay ku kooban tahay miisaaniyaddu golaha guurtu lama wadaago miisaaniyadda ayuu maxay ahayd ansixiyaa oo uu celin karaa uu ka doodi karaa waxa uu kale maxay ahayd awood u leeyahay oo sharcigu uu maxay ahayd u banaynaya in siyaasadda guud ee waddanka ay ka taliyaan ka talin marka waxa laga jeedaa inay talooyin u soo jeediyaan maxay ahayd madaxweynaha iyo xukuumaddiisa siyaasadda guud ee waddanka qaranka lagu hagaayo intay fadhiistaan qoraan u gudbiyaan tala ahaan ugu gudbiyaan marka la leeyahay tala ahaan bay ugu gudbinayaan taladii waxa weeye way u gudbiyeen laakiin hadda way kula xisaabtami karaan oo waxbay weydiin karaan halkaa markaa waxa maxay ahayd ay ku tusinaysaa baarlamaanka Soomaaliland waxa ugu qoran maxay ahayd dastuurka iyo sida uu u dhaqma waa laba kala fog marka waxa ay dee ku tusinaysaa oo halkaa maxay ahayd anigu inta badan aan waxaba dhici kartaba waxaan ka sheekeynayno qaar badan oo baarlamaanka ku jira in aan waxa weeyaan aqoonba u lahayn oo aan isku dayin waxa weeyaan maxay ahayd haddii aqoon u leeyihiin maxay ahayd fahamkii ay ku dabaqi lahaayeen hadday arkeen oo ay akhriyeen qiimaha uu leeyahay aanay garanayn oo maxay ahayd uu arrinta qarankana u leeyahay iyagana u leeyahay karaamadii sharaftooda marka ma dabrana dastuurku awood fiican buu siiyey laakiin de waxay ku xidhan tahay awoodda sida kolba guddoomiyaha meesha fadhiya iyo shir guddoonku yani waxa weeyaan maamulaya iyo waxa weeyaan xisbiyada maxay ahayd dadka ka soo baxay ay u dhaqmaan ayay ku xidhan tahay xisbi inay ku arkaan inay yihiin dee awood jirta oo u baahan in check and balancing isu dheelatirkii maxay tahay awoodaha inaanu meesha ka bixin oo xukuumadda iyo dawladdu jeebka ku ridan waxaasoo dee waxa weeyaan awoodaa ayay leeyihiin laakiin de waa awoodaha iyagu iska qaadeen haddii aan maxay ahayd aanay ku dhaqmin waan gartay waxaan rabay inaan wax kaa weydiiyo muxuu ahaa ama aan ku daawudsiiyo video ka sheekeynaya shuruudaha maxay ahayd toolay qofka xildhibaanka ah ee doonaya inuu soo galo baarlamaanka Soomaaliland shuruudaha laga doonayo kadib daqiiqadu soconaya videoga kadib baan ka yara doodina ama su'aal kaa weydiinaya balan daawan horta videoga muwaadin ma isweydiisay sidee ayaan u xushaa musharaxii ugu matali lahaa golaha wakiilada ee Soomaaliland qodobka 14aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobka 16aad ee xeerka doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si cad u qeexaya shuruudaha looga baahan yahay qof kasta isu soo taagaya inuu tartamo golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland shuruudaha xeerka doorashooyinka iyo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka rabo musharaxa golaha wakiilada ayaa ah waa inuu muslim yahay kuna dhaqmaa diinta islaamka waa in uu muwaadin yahay isla markaasina daadiisu aanay ka yaraanin 35 jir waa inuu jir ahaan iyo caqli ahaanba uu gudan kara xilkiisa waa in uu leeyahay aqoon dugsi sare ama wax u dhigma ugu hooseyn waa in aanu hore ugu dhicin xukun ciqaabeed oo kama dambaysi oo maxkamadda horteed kaga cadaatay 5 sano u dambeysay waa in uu yahay xilkas isla markaasina akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisu ay toosan yihiin uma banaana qof shaqaale dawladeed inuu isu soo taago doorasho haddaan okay kale video waa daawatay inta ugu muhiimsan ee ku jirta waxa weeye inuu aqoon leeyahay iyo waxa ku jirta inuu maxay ahayd toolay aan
aan ahayn shaqaale dowladeed saan aragnaa dee niman badan oo shaqaale dowladeed baa hadda wada galay xildhibaano wada noqday maxay ahayd tusaale ahaan dadkan qurbaha ka taga ee wadankii taga ee doonaya jagadaas oo kale siday ma digri ay leeyihiin ama aqoonay garanayaan ayaa lagu geeyaa ma beel ahaan baa lagu geeyaa ma dhaqaalaa lagu tagaa bal halkaa bal haddaad macneynayso muxuu ahaa Cabdilaahi horta waxa qodobadan uu maxay tahay video uu sheegay maxay tahay lagu sharxayay waa qodobo waxa weeyaan qaarna maxay tahay dastuur ku qoran yihiin qaarna xeerka inta badan dastuurka ku qoran tahay qaarna xeerka doorashooyinka ay maxay tahay ku qoran yihiin waana waxa weeyaan inta badan dastuurada iyo shuruucda doorashooyinka dhan waa waxa weeyaan qodobada waa loo sharxay waxa la yiraahdaa shuruucda xubinta u tartamaysa golaha marka shuruudahan waxa weeyaan guud ahaan waa iska marka la eego waa inuu qofku muwaadin yahay inuu muslim yahay inuu akhlaaq fiican yahay oo muslimka waliba muslim diinta islaamka ku dhaqmay inuu maxay ahayd inuu yahay inaan dembi ciqaabeed maxay ahayd inaan ku dhicin inuu uu ku jiro waxa weeyaan iska diiwaan geliyo gobolkii uu maxay ahayd uu ka tartamayay oo ku jiro yahay maxay ahayd registrationkii uu qaatay kaarkii uu qaatay inuu deebaajigii iyo wixii kharash ah maxay ahayd markaa uu shubo inuu yahay jir ahaan iyo caqli ahaan nin gudan kara waa shuruudahaas ay maxay ahayd ayay marka la waxbarashada waxa la yiri waxa weeyaan waa inuu dugsi sare ama wax u dhigmo baa la yiri marka imika dadku inta badan waxay ka doodaan oo waa ay u fahmeen oo waxa weeyaan murashaxiin badanna lagu celinaya ma haysataan shahaado dugsi sare oo halka waxaan u arkaa marka qodobkaas runtii inuu si fiican anigu waxaan u arkaa qodobkaas inuu yahay qodob imika si qalad loo adeegsanayo hore uma inuu adeegsan jirin laakiin imika si qalad loo adeegsaday oo wasaaradii tacliinta ayaa maxay tahay ayaa la yidhaha eegto maxay tahay shahaadooyinkii oo waxa halkii commissionka la oran lahaa maxay tahay ha isagu ha qiimeeyo waxa kaloo imanaya waxa weeye xeerku wuxuu leeyahay shahaado dugsi sare iyo wax u dhigma waxa u dhigma marka waa khibrad bay noqon karaan yani ma fasirno wax u dhigma wuxuu noqon karaa macad shahaado u dhiganta oo macad ka soo qaadatay ayay noqon kartaa waxaan maxay tahay waxaan xasuustaa masaaridoo kale Egypt waa dalka ballaaran waxa jira waxa weeyaan waqti loo shardi jiray in qof 70 ka hor inuu xubinta baarlamaanku inuu waxna qoro waxna akhriyo ayaa maxay tahay kadib baad leedna maxay tahay 7 markaas wali 7 kadib baa leeyahay waxa weeyaan waa in marxaladda asaasiga ee tacliinta ilaa uu haysto marka marba xitaa dugsiga maxay tahay hoose ku geli jireen marka waxaan uga soo socdaa waxa weeyaan in aan maxay tahay dadka qaar iyadoo political ahaan loo dilaayo qodobka loo adeegsan waxa weeyaan waa maxay tahay waa mid muhiim ah oo waxa weeyaan la yiraahdo maxaa u dhigma qofkii maxaa u dhigmi kara la yiraahdo halkaan maxay tahay aan deel lagu sameeynin political ahaan loo dilin qofkii iyadoo dad gaari maxay tahay markaa wataan taas waa iyaduna qodob u baahan in waxa teewna ku jira muwaadin halkaa waxa weeyaan lama kala cadayn muwaadin baa la yidhi laakiin muwaadinka ma muwaadin waxa weeyaan hal jinsiyado keliya haysta dee tii maxay mise waxa weeyaan laba hadduu qofku laba jinsiyado haysto masalan oo laba baasaboor haysto ma geli karaa iyaduna waxa weeyaan waa waxa u baahan tahay maxay tahay كل يدنا دولة قارك ويش بكتينا لكن جودها شروطه ما محي تي محرمة إن محي تي شروط وروتا هل كان كودري ما مغلسة هل كان كودري واحد شرتي أو بعضي برامج سؤال لان كذا عضي مدة وشري لحية توقع الصلاة ضد واحد شري تودي وتم وجريودي إلى ونحرسته أو دحال أما إن كيسي أما إسلامتيسي أي بوسك أو فريستي
ka waran sheekooyinka markaa marka ay xagga waxa weeyaan dhaxalka inta badan kama dhacdo baarlamaanka waxa weeyaan waxa kayd baa jira oo marka uu qof oo xubin geeriyooto ama ay iscasisho ama duruuf kale ku timaado waxa jira doorashadii 2005 la galay magacyadii baa yaala marka ninkii ku soo xigay baa soo gala oo maxay ayaa meesha yimaada laakiin halka la iska dhaxlaa waa guurtida oo mushkiladaas ay ka taagan tahay waxa weeyaan waa guurtida oo waxa weeyaan de guurtidu waxa weeyaan waxay fadhidaa waa 28 sano ay fadhidaa guurtidu waxa imika marka aad gasho mesela maxay baarlamaanka Soomaaliland marka aad baadho research ku samayso waxa ku qoran waxa weeyaan baarlamaankan waxa la doortay 2005 baa ku qoran baarlamaanka la doortay waxaanu marana waxaana qoran in election kale doorashada baarlamaanka xilliga la doortay la doortay 2005 in 2021 ka imika la rabo in la bedelo marka qofka waxa weeyaan isiraahda مثلا ajnabiga baada waxay tahay historyga baada eega uu yaabaya 16 sano baarlamaan fadhiya guurtidu waxa weeyaan waxa la aasaasay 93 waxa weeyaan iyadoo 28 sano fadhiya qofka baada uu yaabaya isaguna waxa oranaya dadka waxay casriga noolyihiin marka halka waxa ka muuqata in go'aan laga gaaro waxa la yiraahdo muddo kordhinta duruuf bay ahayd waxa weeyaan maxay taas waa harto waa taamiso marka xagan su'aasha la weydiisay hadaba soo noqdo waxa ka dhacday inta badan guurtida oo waxa weeyaan dhaxal bay noqotay oo taas marka hatta qabaa'ilkii way guurtida qabaa'il baa laga soo dhex doortay hatta qabaa'ilkii lagulama noqdo waxa weeyaan oo waa inankii baa la keenaa ama deemid maxay tahay kaloos isku yihiin baa la keenaa ama inanku dhalay oo dhaxal bay iska noqotay waxay ahayd in la yiraahdo war reerkii hadduu hayso ugu noqdaan reerkii markii hore soo xulay qaabkii lagu soo xulay iyo family hashiro cid ha keenaan moogtay marka gudoomiyaha iyo maxay tahay gudoonku baa mala si gaaradeedo wax la yiraahdo reerkii odaygu ka baxay marka waxa weeyaan in halkii dabiilkii laga qaadanayay miduna loo geliyo iyadoo waa taade guurtidii hore de waa taa macna beeshay marka guurtidii aynu aragno say macna beeshay waa gartay muxuu ahaa waxaan rabay inaan ku weydiiyo dadka badanaa waxay yidhaahdaan baarlamaanka Soomaaliland ama guurtida Soomaaliland waxay hoos tagaan muxuu ahaa madaxtooyada Soomaaliland oo kale oo madaxweynaha oo kale ayaa tolay ay hoos tagaan laakiin sida caalamiga xeerarka caalamiga waxa weey baarlamaanka inuu ka madax banaanaado madaxtooyada ama madaxweynaha oo kale waxa kale oo lagu yara dhaliilaa Soomaaliland tan ka hadlayna hadda waxa lagu dhaliilaa baarlamaanka iyo maxkamadda sare waxay toos u hoos tagaan madaxweynaha halkan maxay kula muuqataa Cabdullaahi maadaama aad sharci yaqaan tahay labadii gole ka awoodis sareeya maxay la oran karo wadankii inay meel kaliya ku arooraan hoos tagaan see u aragtaa aragga horta hal qodob waxa jirta sharciyan marka la eego ma hoos tagaan waxa kala jira moogtahay sharciga marka la eego sharciga aad baadho iyo xuquuqda ay kala leeyihiin si kala duwan saddexda waaxood way kala madax bannaan yihiin oo sharci ahaan uma hoos tagaan oo dastuurka Soomaaliland muu hoos geynin qawaaniinta Soomaaliland may hoos geynin waa saddex hay'adood oo siman oo la rabo inay maxay tahay si dheeli tiran inay qaranka ugu adeegaan isna qabtaan waxa loo sameeyay waxa weeyaan waa inay isqabtaan iyagu oo haddii ay taraaro waxa weeyaan maxay tahay qaybta fulintu oo waxa weeyaan madaxtooyadii iyo golihii wasiiradu haddii ay taraaraan in uu qabto waxa weeyaan baarlamaanku haddii uu baarlamaanku taraaro oo shuruuc dastuurkii ka soo horjeeda uu keenana inay maxay tahay garsoorka uu qabto
oo waxa weeyaan la yidhaha sharcigaas dastuurka ma waafaqsana haddii waxa weeyaan uu ku xadgudubto dowladdu muwaadin oo xaq xuquuqdiisa ay ku xadgudubto dabeedna inuu dacwad furan karo dacwadda maxay ahayd dabeedna maxkamaddu ay eegto dabeedna loo garsooro waxa weeyaan muwaadinkii iyo hay-adihii maxay ahayd dowladda loo garsooro oo taasay maxay ahayd tahay marka waxa dhacda marka waxa weeyaan maaha Somaliland oo kaliya Africa oo dhan bay ayaa haysataa hal wax baa dhaca waxa dhaca waxa weeyaan maadaama fulintu ay haysato baawarka ugu ballaaran maxay ahayd dowladdii gacmihii dowladdu ay ku shaqaynaysay dhaqaalihii dowladdu ay maxay ahayd ku shaqaynaysay awoodihii iyo baawarkii waxa weeyaan maxay ahayd ay gacanta ugu jirto oo ciidankii iyo militarigii iyo booliskii oo dhanba ay xaggii fulinta raacsan yihiin waxa weeyaan waxa imanaya haddii markaa aan waxa weeyaan baarlamaanka dadka jooga iyo garsoorka dadka jooga iyo shuruucda iyo fulinta cidda joogta aanay ku dhaqmayn aanay caqligooda iyo maskaxdooda aanay ahayn waxa jira wax ka sarreeya awooddaada oo dastuura dabeedna tallaabada ay xukuumaddu qaadayso in loo eego sharciga mar walba يعني waxa weeye qaraar kasta oo ka soo baxaya maxay ahayd shuruucdu way kala sareysaa dastuur baa jira oo waxa la yiraahdaa waxa weeye waa aabaha qawaaniinta dastuurka weeyaan sida bangiga dhexe loo yiraahdo waxa weeye aabaha bunuugta central bankigu waa aabaha bunuugta la yiraahdo dastuurka loo yiraahdo aabaha qawaaniinta qaanuunka markuu dastuurkii waxa ka sii hooseeya maxay ahayd xeerkii baa ka sii hooseeya xeerkii waxa ka sii hooseeya dabeedna maxay ahayd go'aanadii idaariga ah ee maamulka iyo lawaaixda waxa loo maxay ahayd afcarabeed lagu yiraahdo ayaa ka sii maxay ahayd ayaa ka sii wasaaraddu ay soo saaraan halka marka waxa weeyaan waa in horta qofka fulinta jooga maadaama aanaynu inagu waxa weeyaan systemku inagu cusub yahay fulinta horta waa in aqliyo furan ay u leedahay in ay ixtiraamto shuruucdii yani haddii inay ixtiraamto inay maxay ahayd ay aqliyo furan u leedahay marka meesha waxay ka imanaysaa dhibta uu ka imanaya fulintii oo laga yaabo in ay maxay ahayd dastuurkan iyo waraaqahan ay u haysato waxyaalo la iska qorqoray talabaad waxa weeyaan baarlamaankii oo aan maxay ahayd baahi badani jirto oo waxa weeyaan haddii waa tusaale ahaan waxa baarlamaankii waxa weeye kan ka horreeyey mushaharkooda kanna waxoogaaba weeye xitaa kuma filaan u qabaay waxa nin xildhibaanaan ku yidhi war maxaad awooddiina u gudan weydeen maxay ahayd wuxuu niyo maxaanu gudanaa buu yidhi waxaan qaadanaaba waa 200 buu yidhi waa baarlamaankii 2005 meelaha maxay ahayd kamala kaasoo abu ahaa baan filaya waxaan qaadanaaba waa 200 waa intaan lacagaa loo kordhin ergaaba laga soo doortay buu haddaan safar u baxay buu waxa weeye $200 ba ay ku baxayeen maxaad dadkiina kuma noqotaa aan ku noqonaa buu marka waxa muhiimaddu waxa weeye horta qofka baarlamaankii inuu ka kaaftoomo gacan fulineed inay wax u saarto fulintu inay gacanta wax u saarto inuu noqdo qof mushahar fiicanna maxay ahayd loo qoro waajibaadkiisiina maxay ahayd garanaya talabaad waxa weeyaan in ciidanka booliska iyo militariga iyo waxa weeyaan sirdoonku ay ku tarbiyeysan yihiin inay ilaaliyaan waxa weeyaan iyo xeer ilaalintuba shuruucda qaranka laakiin aanay ilaalin maxay ahayd rabitaanka maxay ahayd madaxweynaha iyo wasiirada tusaale ahaan waa inaanay ilaalin waa tii waxa weeyaan uu Trump ku tagay weeyaan Trump waxa weeyaan madaxweynihii Mareykanku waxa weey baarlamaankii wixii ka dhacay haddii markaa ciidanku uu la socdo oo sirtoonkii uu la socdo oo waxa uu sameeyay laga badiyay wili lagama badin miye Mareykanka maxay ahayd laga dhaqaajin lahaa lagama dhaqaajiyo laakiin hay-adihii kale ee awoodda lahaaba waxay fahansan yihiin shuruucdii oo inaanay qof iyagu maxay ahayd u ahayn maxay ahayd adeege ee qaran ee adeego yihiin ayaa maxay mar hadda marka ku sheegay qodobka 37 ee dastuurku wuxuu leeyahay
karaamada waxay awoodda iyo karaamada ilaahay uu siiyey qaranka Somaliland shacabkiisa waxa ay u hibeeyeen waxa weeye dawladda si ay waxay iyaduna ugu dhaqanto distoor marka haddii hibadii la siiyey shacabku ay siiyeen haddii loo fahmo waxa weeyaan maxay tahay wax maxay tahay iyagu qofkii uu leeyahay mulkiyad oo wasiirku uu fahmo kii baarlamaanka fadhiyo uu fahmo kii maxay tahay garsoorka uu fahmo hibe isagu uu leeyahay oo mulkiyad isagu uu leeyahay de waxa weeyaan maxay tahay waa mushkilad marka waxaan u baahanahay in aqliyadda noocaasa marka hore qof kursiga imanaya ay maskaxdiisa ka baxsan tahay shacabka laftiisu uu ka baxsan tahay oo waxa weeyaan ay u fahmaan ay arkaan marka meel ka soo wada jeestaan qofka sharciga ku tumanaya marka la yiraahdo qofkaas xeer ku tuntay sharciga ku tumanaya aan muran la gelin laakiin la yiraahdo war ka joog dadna uu ogaado baarlamaankii hadduu yiraahdo no madaxweynaha ku dhawaad shacabka oo dhami uu soo wada baxo marka wada ka daa waxay tahay laakiin haddii waxa weeyaan baarlamaankii markuu fadhiisto shacabkii aanu isaguna ku taageeray wixii saxda ah oo garsoori marka waxay tahay xukumo marka halkaas waxaan u lahaa waxay u baahanahay in culture ka bedelo culture kaas marka ina jiidanaya laakiin waxaan lagu qabaa inta aan culture ka laga bixin waa in mar walba laga dagaalamo xeerarka xadidaya xuquuqda asaasiga ee qofka xorriyadda hadalka xorriyadda ismaatinka iyo maxay ahayd xorriyadda doorashada in wixii xadidaya in laga dagaalamo inta la gaarayo de waxa weeyaan system keeni kara waxa weeyaan inuu ixtiraamo dastuurka iyo shuruucda waa garta muxuu ahaa qodobka ugu dambeeya waxaan rabay inaan kaa weydiiyo maadaama aad sharci yaqaan aad tahay aad lawyer tahay waxaan Somaliland ka jiray 20 sano ugu dambeeyay in la isku qabsado dhulka oo dhulkii ayaa ah dhul maxay ahayd qofka tusaale ahaan uu iibsanayaa ama uu dhisanayaa ama maxay ahayd marka waxaa jirta in la isku qabsado oo mararka qaar ay gaadho maxay ahayd dacwado iyo maxkamado ama mararka qaar ay gaadho dagaal oo kale ayaa jirta oo ku soo noqotay dawladda Somaliland ilaa hadda ay xal toos ay u laaday tusaale ahaan haddaan ku soo yara qaato waxaa jirta anoo kale dhul iibsanaya markaan dhulka iibsado de waxaan marayaa processkii iyo ijraa'aadkii loogu talagalay baan marayaa waraaqihii waan la soo baxayaa Cabdullaahi uu soo dhaw balka marka waxay maqlaysaa okay good marka waraaqihii waxay ka soo baxayaan xafiiskii loogu talagalay ayay ka soo baxayaan kadib waxa laga yaabaa weegan ama weega ku xiga inuu qof kale u tago isla dhulkii oo kale haddana loo sharciyeeyo haddana waraaqihii oo kale loo sameeyo waad fahantaan fariya macnaha u jeedo ma aragtaa marka warqadii waxa laga yaabaa in hal koobi ay tahay dhulkii inuu hal dhul uu yahay laakiin maxay ahayd toolay labada qof magacyadoodii la kala bedelo marka kana de dhulku isaga iskale kana dhulku isaga iskale marka saasay badan dib ku yimaada muddo dheerna way ka soo jirtay Somaliland maxaad dawladana de waxaasuma maxkamadaha badan ku soo laalaabtay saan aragno bal maxaad marka ay kula tahay sidee marka ay dawladdu u samaysan lahayd database hadu tusaale ahaan dhulka haduu qof iibsaday haduu qof kale yiraahdo ana iska laho kale ama waraaqii igu sameeya maxaa loo oran laayay dhulkan waa la iibsado hebel baa iibsado waqtiga iibsaday marka database ama record noocaas oo dib loogu laabto malaha ayaan qabaasaan hadda arko way qof walba waraaqii uu wataa hal qofna waa laga yaabo inuu sameeyay ama xafiis kaliya inay sameeyay sida aragtay arrinka horta dhulku waxa weeyaan dee dhibaato badan baa ka taagan oo waxa weeyaan dilal baa ka dhaca qoryaal la soo qaataa waxay ka mid tahay rabshadaha ugu badan ee maxay ahayd amni darrada sababa maxay ahayd dhinaca Somaliland taasuna waxa weeyaan horta waa koowe waxa aasaas waa horta dadkii oo waxa weeyaan intaan horta sharciga la gaarin qofku waa inuu de ummadu qiyam iyo waxay leeyihiin akhlaaq iyo waxa weeyaan amaana ayay lahaayeen oo de qofku waa inaan waxaan xaq u lahayn maxay ahayd aanu qaadan xukunku ugu dhaca waxa weeyaan maxkamadeed
oo waxa weeye waxaanad xaq u lahayn lagugu siiyaana dee waxa weeye waa dulmi ayay tahay diiniyana waa xaaraan nebiguna calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlayay dee arrintaa wuxuu yidhi waxa weeyaan anigu buu labada qof ii yimaada waxaan eegayaa buu xujadooda markaa kii xujadiisu markaa isagoo nebi allah oo wax walba maxay ahayd loo waxyoonayo ayaa haddana si aan maxay sidii dabiiciga ahayd waayo inagu dee macallin buu inaga inoo ahaa marka wuxuu yidhi waxaan eegayaa xujadooda marka waxaan u xukumayaa qofka waxa weeyaan xujadiisu in ay caddahay marka ninkii dee aan u xukumo buu yidhi maxay ahayd xukun aan maxay ahayd waxaan xaq u lahayn qidcad waxa weeyaan gobol naar uu qaadanaya marka horta taas waxa weeyaan waa in qofku dadku ogaadaan oo waxa weeyaan inaanay maxay ahayd xaq inaan xukunka maxkamaddu u xalaalaynayn waxaan xaq u lahayn taas waxa weeyaan waa kow waa in dadku taa laysla fahmo qodobka labaad waxa weeyaan mas'uuliyadda koowaad ee dhulku waxay saaran tahay waxa weeyaan dowladaha hoose oo dhulka iyagaa maxay ahayd iyagaa bixiya oo ka mas'uula iyagaa qorsheeya oo maxay ahayd og waxa weeyaan taana waxa weeyaan in aanay waxay tahay inay dee in aanay dadku madaxa isu soo gelin ayay tahay waa in markaa wax kasta oo qofku uu xaq qof lagu dulmeeyo marka waxay noqonaysaa horta bal in dee dhulkii la diiwaan geliyo oo waxa weeyaan deednada iminka berigii hore lama awoodo laakiin iminka waa la awoodaa waxa la awoodaa in daato lagu sameeyo oo computer lagu shubo oo daato isku xidhan oo xafiis walba taala oo xitaa waxa weeyaan nootayooyinka wadda ka jira ee waxa weeyaan dadka dhulka u kala qoraya ay haystaan oo qofka marka lambarka sidaa loo geliyo waxa weeyaan lambarka dhulka iyo halku yaaliyo cabirkiisa marka la geliyo magaca markiiba ay soo boodo dee qofkii lahaa inta jeer la kala iibsaday iyo maxay ahayd horta taas waxay baahan tahay in la sameeyo si aan maxay ahayd aanay dee faylashana la wareegaya faraha badan aanay u maxay ahayd dhicin taas iyaduna waxa weeyaan waa qodobka kale ee waxa weeyaan meesha iyagu yaalla waxa weeyaan qofka wax iibsanaya waa in aanu dee waxa weeyaan wixii iska hubiyo oo dhul baa jira dhaxala oo dadweyne leeyihiin qof baa jira waxa weeyaan dhul mas-uulka ah oo waxa weeyaan dad mas-uulooga ah laakiin hadduu doono damaaciyaya oo iibinaya waxaa jira dhul la isku haysto oo muran ka taagan yahay oo laba qolo isku haystaan haddaa intaad maxay ahayd lagaa iibiyo oonad iska hubin dabeedna hadhowto waxaad dhex gelaysaa qoladii hore qoladii kula murmaysa unbaa dhinaca ku qabsanaysa marka qofka wax iibsanayaana waa inaanu shilinkiisa maxay ahayd meel cidla ah maxay ahayd aanu ku shubin taasna waxay ka imanaysaa xagga dadka oo lacagtana la wardaayo waxa weeyaan waxa kaloo iyaduna meesha taalla xagga maxkamadaha iyaguna waxa dee looga baahan yahay waxa la yidhaahdo cadaaladdu hadday raagto waa dulmi macallin wax noo dhigi jiraa wuxuu odhan jiray maxay ahayd uu ku celcelin jiray wuxuu odhan jiray cadaaladda oo dub looga dhigo waqtiga aad u baahan tahay waa dulmiga qayb ka mid a marka maxkamaduhu haddii aad u tagto oo waxa weeyaan 2 sano ay ku meeraysiinayaan oo xukunkii aanay ridayn oo waxa weeyaan deedna waxa weeyaan 3 sano kadib ay ku xukumaan 6 sano kadib adigoo waxa weeyaan oo laga yaabo kuwii feelashiistay iyo wadi inay dhinteen oo inamadooda ka dhaxleen dulmi waa dulmi wada marka maxkamadii waxa weeyaan in kiisaska la soo afjaro weeyaan oo sida taasuna waxa weeyaan waa qodobka aan ugu dambaysan waxa weeyaan waa fulinta يعني marka qodob waxa jira qof maxkamaddu soo xukuntay oo waxa weeyaan maxay ahayd waxa loo soo dhamaadeen waxa dib loogu soo noqdaa dawladda hoose iyo xukuumaddiiba marka haddana dib loogu soo celinay waayo maxkamaddu waxbay xukuntaa laakiin fulinta waxa leh maxay ahayd waxa weeyaan xukuumadda leh marka xukuumaddii haddii maxkamaddu ku xukunto oo iyaduna ay fulin waayaan oo taliye boolisku is hortaago ama maxay ahayd is hortaago maxay ahayd maareeyay is hortaago ama wasiir is hortaago iyaduna waxa waa mushkilad kale marka
marka iyadana fulintana waa in go'aan laga gaaro oo la yiraahdo wixii maxkamadi soo maxay ahayd soo xukunto waxa weeyaan waa inuu sideeda u fulo isma hortaagi karo madaxweyne isma hortaagi karo waxa weeye mar haddii xukun kama dambaysta mar hadduu dhacay oo ilaa maxkamadii sare la gaaray oo wax waliba soo dhammaadeen waxa loogu hayo maxay ahayd kiiskaagii maxay ahayd fulintii loogu hayo oo lagu fulin waayo dawladda dhexe ku fulin weyda iyaduna waa qalad kale weeye halkaana kiisas badan baa lagu hayaa marka waxaan oran lahaa taana laga maxay ahayd laga gudbo intaasaan maxay ahayd qodobka kusoo gabagabeynaa waan garta aad u mahadsanyahay kaas wuxuu ahaa cabdilaahi xasan nuur oo ah qariiqaan bartay sharciga sugaan khadka maanta noogu jiray oo marti noo ahaa aad baad u mahadsan tahay qariiqaan kamaal waad mahadsantahay adiguna aad baad mahadsantahay wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh adiga mushaahidiintu dadka idin daawanaya